Xiligan waxa aad loo hadalhayaa korukaca xawliga ah ee AI-gu uu faa'iido u keenay cyber security-ga. dabcan faa'iido waa inoo keenay, laakiin waxa laga yaabaa inaadan xog badan ka hayn sidee hackersku adeegsanayaan AI-ga iyo technology-da casriga ah si ay shaqadooda uga dhigaan mid sophisticated ah oo aan si fudud loo fahmi karin. Sidoo kale waxaanu soo qaadanaynaa maclumad ku sabsisan sidee AI-ga loogu adeegsanayo in lagu soo helo zero-day vulnerabilities-ka oo aynu ognahay khatartooda. barnaamijkeena maantuna waa mid muhiim u ah dhalinyarta xiisaynaysa cyber security-ga. kusoo dhawaada Muqalkenan maanta. sidaan ugu soo qaadanay muuqaalo hore ee AI-ga xiligan waxaa si weyn loogu adeegsanayaa cyber security-ga isagoo qayb weyn ka ah sugidda amniga sistamyada. dhanka kale waxyaana loo adeegsanaya in lagu sameeyo hacking. haddaynu tusaale soo qaadano qoridda phishing emailska ama fariimaha phishing ah ka hor AI-ga waqti badan ayaa ku qaadanaysay inaad diyaariso fariin phishing ah oo si aad u soo jiidan karta targetka kuna qancin karta inuu click siiyo linkiga u dirtay ama degsado faylka rabto. balse inagu adeegsanayna AI waxaan jaarin karnaa fariimo si aad u qancin kara targetska aan rabno. waxaan soo kala tusaale soo qaadan karnaa qarinta malware-ska khaasatan koodiskooda. sistamyada difaaca ee cyber security-gu waxay bartaan pattern ay raacaan ama u qoran yihiin koodiska malware-ska ahi si ay uga hortagaan in malware-skaasi ay soo gudbaan. balse iyadoo la adeegsanayo AI waxaanu samayn karnaa inaynu ka dhigno koodiskeenii kuwa aan laga shakin karin oo malware looga shakinba. waxaa sidoo kale AI-ga loo adeegsan karaa in lagu sameeyo tooliska hacking-ka. haddaba noocyada AI-ga ee shaqooyinkan halista ah loo adeegsan karo waxa ugu caansan WormGPT oo laga yaabo inaad mar hore maqashay. WormGPT waa AI la mid ah ChatGPT balse aan lahayn wax control ah loona adeegsado shaqooyinka malicioska ah ee hacking-ka. sidoo kale dark web-ka ayaa lagu kala iibsadaa lagana helaa tools kala duwan oo AI powered ah dhammaantoodna loo adeegsan karo shaqooyin kala duwan ee hacking-ka. 2024 waxaa la sameeyay tijaabo ah in iyadoo la adeegsanayo prompt la heli karo xogo confidential ah. tijaabadanna waxaa lagu sameeyay chatbotska customer serviceska qaabilsan ee aynu badanaa ku aragno websiteska. waxaana tijaabadan lagu adeegsaday prompts si xeeladaysan loogu marhabaabinayo chatbotska kana dhigaya inay bixiyaan passwords iyo files ay ahayd in qarsoonaadaan oo confidential ah. halkaa misla fahnay kaliyata hadal loo dhigay si xirfadaysan ayaa ka dhigay in AI-gu uu bixiyo xogo lama hagarayn lamana dirin wax malware ah. xiliganna meelo aad u badan ayaa lagu adeegsadaa chatbotskaas qaabilsan customer serviceska waxayna tani kor u qaadaysaa khatarta hacking-ka. dhibaatooyinka xiligan cyber security-ga aadka ugu soo kordhaya ama AI-gu keenay waxaa ka mid ah inay aad u fududaatay helidda zero-day vulnerabilities-ka. waagii hore in la helo zero-day vulnerability ama guddaleel markaasi uu la ogaaday oo cusub waxay qaadan jirtay waqti iyo dadaal badan oo kooxaha hackerska ahi ay ku bixiyaan si ay u sahli lahaayeen zero-day vulnerabilities. xiligan iyadoo la adeegsanayo AI waxaa soo fududaanaya processkaasi iyadoo tooliska AI-ga lagu analyze garaynayo systemska la rabo lagu sameynayo reverse engineering laguna qorayo malware-skii ka faa'iidaysan lahaa vulnerabilities-kaasi. haddaba markaynu eegno mustaqbalka iyo sidee u socdaan xiligan waxaan oran karnaa cyber security-gu waxa u baahan yahay inuu noqdo mid proactive ah, yacni aan sugin inta hacking dhacayo balse si joogta uga hortaga iyadoo la adeegsanayo AI tools ka horumarsan intay hackersku hayaan. cyber security-gu waa inuu noqdaa mid leh zero trust oo aan lagu kalsoonaan wax device ah ama user ah oo systemkaasi ku jira si looga hortago khatar kasta oo la soo dhex mari karo deviceska ama userskaasi. ugu dambeyn cyber security-gu waa field la koraya teknolojiyadda waxaana muhiim ah in markastaba cyber security professionalsku ay si dhow la socdaan isbedelada hackerska iyo xeeladaha ay adeegsanayaan. muuqaalkeena maanta intaas ayuu ku egyahay. ha ilaawin inaad la wadaagto asxaabtaada. mahadsanid.